inta yara qososhay oo ubax gaduudan oo ay dhabarka ku hayso oo malaha isleed kadis uga dhig la soo baxday bay waxay ku tiri boqorkii ragaad tahay baxsan aan sugayay kaan beegsanayay baad tahay bogaygaad ku taalaa waaxyaha jirkaygana adiga ku baaho beerkaygi baad tahay intaa uguma simina waxay ku darsay macaanow daraada dareen baa isaaqo damiirkayga taabtee dibindaabyo iga dhowr dayax soo baxayo mugdigii iyo madowgii meeshaba ka saaro maqnaanaynin baad tahay ugu dambeyn ayay sheeko dheer waxay ku soo xirtay naftayduna hubaashii adigay ku doorato kaa daalimaysee adigaan ku daa'imi isna inta yara qoslay oo madaxa salaaxday malaha been buu la jilayay wuxuu halistiisa jacaylkiiyo hadimadiisa oo idil nin ka haybaystay oo ka haray waa horana adna hadeertaan baa howd cidla iyo meelaan noola ku noolayn hoog gacanta iga leedahay waxa aad ku haminaysa hiyiga iyo laabta ku hayso iga heli maysid anigu yaha ku qaado jacaylko hawada ha kugu daro ama haada duushiyo shimbiraha ha kula simo ama isaga dhan iska hilmaamo halkaanba uga har inta ka naxday oo la cajabtay hadallada oo aad moodo inay sidii fallaarihii ugu dhacayeen wadnaheeda ayaa waxay ku tiri walaal maxaad uga dhigta ubixii aynu muddada dheer ku soo rafaadnay barbaarintiisa mid aan sal iyo baar toona lahayn ogow maalmaha adduunyada ninba waa markiisii haddaad maanta goysana markaagay ku sugayaan haddaba daawadayaal haddaad ka hesheen geeraaradan talantaaliga ee aynu idiin soo baahinay iyo sidoo kale qisooyinka iyo sheekooyinka dhabta ee aynu idiin soo gudbino fadlan subscribe saar janalkeena ayaha nolosha TV oo noqon saaxiibka ugu horeeya ee daawada barnaamijyadeena mahadsanid